waxay ahaayeen dhalinyaro kuwii aan odhan karno مثلا النبي صلوات الله وسلامه عليه مدينة سجوجو وحو باهدا إن لغة يهودات عدو برطه سي يهودا من كما هي وحي هشي سيك لقلي أنا ما وحي وراقي سقريان عدو واخر ذا مسلم وكوكل سحاب اللي يراه آدو اللي يراه زيد بن ثابت بالنبي يقول برا زيد بن ثابت إنه هدف كاسي حقيقي علماء التاريخ قارنا waxay leeyihiin dhowr iyo 10 casho ayuu ku bartay qaarna waxay dhahaan 20 casho ayuu ku bartay isku daro علماء التاريخ waxa la bil ka badan ku bartay ma jiro luqadan inuu islaam u gargaaro luqa yahuudeed u bartay waxaanu ku bartay aqal min shahr 12 casho ku bartay waxay hayeen dhalinyaro nabigu markuu tilmaamayay saxaabada wala hebel baa waxa idin ku fiican Muaad ibn Jabal baa la tilmaamay inuu yahay ka xalaal iyo xaraam idin ku yaqaan Muaad muxuu dhalinyarnimo ku dhintay xataa markii dambe Muaad ibn Jabal nin dhalinyaro ah waxay saxaabadu ninka dhalinyaradii xataa makhatirta ma arko Abdullah ibn Mas'ud waa taqaanin saxaabadii iyagoo yar yar islaamay buu kamid yahay waliba wuxuu ahaa nin marka tamartii xoogga laga warramayo aad u dhuudhuuban oo lagu qoslo mijihiisa marka la arko maalin bay saxaaba ku qosashay mijihiisa intay arkeen rasuul nabiga xadiidka waa ku tilmaamayay mijaha dhuudhuuban ee Abdullah ibn Mas'ud ayaa miisaanka Ilaahay agtiisa kaga culus jabal Uhud buu ku tilmaamayay Abdullah gacaynkaasi makhatirtu ma muuqan iyadoo Quraysh joogto oo kibirkoodii muuqdo oo meel walba faankoodii yaallo ay saxaaba maalin yiraahdo wararta hadha yaa maanta tagay naadiga Qurayshada quraanka dhex akhrinaya ومكة وهي مستضعفين ولا حوق بدن يحي يا ليريا تجيا نادي جودي ما هي مالهم قرآن كآخرين وقاله الشركة يا قريش لهاي قريش يوقف كإسلام الله شيء دليسة أيه واحد اللي يرد السويدين سوار بليه وتجيا قريش قرآن قصة آخرين عبد الله بن مسعود بين أنا آخرين وأوتجي ده ترى قرآن بكده آخرين warwiil kan yareen naadigeena inuu soo dantay muxuu ahaa baa la yiraahdo inta la qabtaa la tumay camal baa loo dhigay si aad u xun baa loo tumay yani ninka dhalinyarada ah waa niman makhatirta arag bay yiraahdaan culimada taariikh markay warramayaan waxay hayeen dad humuum xambaarsan isagoo aan hanti haysan xoolo haysan waxba haysan laakiin raba waqtigiisa inuu ka faa'iideeyo ولذلك أيه هاي عند اللي يرى حتى قادة الجيوش عندما الرجل هو جامني حنا رنكرنا عندما هو جامن داينا إلهي درتي ودق علمان تاريخ ده قوة الدراسة سنسيرة ده مركل أدقى يواوا ده مغشان إن صحابة اللي يرى أي نبي قصور راعي أو يروي حيان قائم قاعدين مركاسي هايقا نقضها هران أو ده بتنن كم ده kuwii aan qaan gaadhin nin ka mid oo dhalinyarada ayaa la yiri hebel isagu waa shiishiyahan oo gamuunka hadduu saaro ragga waaweyn halkuu ku dhufto halkuu u dhigo uma dhigaan baa la yiri soo daayay buu yiri markaa ninkii shiishiyahanka ayaa isaga la yiri laabkiya qaasada gamuunka halkuu ku fiiqo lama waayo ninkaasi waa nin dagaal gali kara baa la yiri iska soo daaya kii markii la soo daayo mid kale yiri ilaahay rasuulkiisiyo hebelka aad sii daysay haddaanu isgallo anuun baa dhulka dhigaana niman ka xoog badnay wax hadii dagaalka loo ogolaaday annaha la sii daayay dagaalka la ogolaaday lagdaba leeyay waa la isgalay ninkii shiishiyahanka ahaa buu dhulka dhigay labadaba soo daayay nabiga sallallahu alayhi wasallam idan waxay dad hadaf u nool qof lagaga celinayo goob rag isku hayo oo dagaal ka socdo oo farisiintii Quraysh ay joogta oo ragii ugu dagaalyahansan ay joogaan ayuu ninkan rabaa inuu ka dagaal galo وانا اللي علعلنيا وحا لليه اما ما اتقان قادين اما انا يرباطي اما كاسبها اللي علعلنيا سنوحوا الربا حتى ميادين الجهاد نقروا يساقوا محي ده اللي يراه